Waqtiga quraacda ee dada dambe ayaa muujin kara halista geeri hore. Daraasad cusub oo muddo dheer socotay oo ay sameeyeen koox caalami ah oo cilmi baadhayaal ah ayaa muujisay in dadka waayeelka ah ee quraacda dib u dhiga ay ku kordhayso fursadda geeri hore, taasoo su'aalo ka keenaysa xiriirka ka dhexeeya waqtiga cuntada iyo cudurrada. Ma aha oo keliya waxa aan cunno ee saameeya caafimaadka iyo wanaagsanida jidhkeenna, waqtiga aan wax cunno ayaa sidoo kale saameeya sida uu jidhku u shaqeeyo. Isla markaasna, xaaladda caafimaadka ayaa mararka qaarkood go'aamisa waqtiga rabitaanka cuntadu imaanayso. Heeg laga ururiyey 2,945 qof oo ku nool magaalada Newcastle iyo Manchester ee UK ayaa la soo ururiyey intii u dhaxaysay 1983 ilaa 2017. Ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen da ahaan inta u dhaxaysa 42 ilaa 94 markii ay isdiiwaangeliyeen, waxaana xogta lagu helay foomam ikhtiyaari ah oo ku saabsan caafimaadkooda, qaab nololeedkooda iyo caadooyinka cuntadooda. Natiijooyinka tirakoobka ayaa muujiyey in dadkaasi ay sannadihii dambe u badnaayeen in ay quraacda iyo cashada dib u dhigaan, taasoo sidoo kale yaraysay wakhtiga ay cuntada u dhexayso maalintii. Wakhtiyada dambe ee cunista ayaa lala xiriiriyey caafimaad jidheed iyo maskaxeed oo liita. Marka la eego dhimashada guud, halista qof u dhiman karo sababo kasta, cilmi baadhayaashu waxay heleen xiriir muuqda. Quraacda oo dib loo dhigo waxay la xiriirtay khatar dhimasho oo saraysa. Saacad kasta oo quraacdu dib u dhacdo, halista dhimashada muddada daraasada socotay waxay korodhay 7%. Dr. Hassan Dashti, khabiir nafaqo oo ka tirsan Harvard Medical School, ayaa yidhi, cilmi baaristayadu waxay soo jeedinaysaa in isbeddellada ku yimaada goorta dadka waayeelka ahi wax cunaan, gaar ahaan wakhtiga quraacda, loo adeegsan karo calaamad fudud oo lagu ogaan karo xaaladooda guud ee caafimaad. Si kastaba ha ahaatee, cilmi baarayaashu ma odhanayaan quraacda oo dib loo dhigo ay toos u sababto geeri hore, ama in quraacda oo hore loo dhigo ay demri dheeri keeni karto. Halkii waxay soo jeedinayaan in xiriirka uu yahay mid ka imaanaya jihada kale. Dadka caafimaadkoodu hoos u dhacayo ayaa u badan inay quraacda dib u dhigaan, islamarkaana halista dhimashadoodu korodho. Tusaale ahaan, hurdo la'aanta oo ka dhalata caafimaad liita waxay keeni kartaa in qofku si daah u kaco, taasoo dib u dhigta quraacda. Dhibaatada caafimaadka jidheed ee sii xumaanaysa ayaa sidoo kale ka dhigaysa howlaha maalinlaha ah oo ay ku jirto diyaargarowga quraacda kuwa wakhti dheer qaata. Dashti ayaa ku daray, ilaa hadda, faham xadidan baan ka haysanay sida wakhtiga cuntadu isbeddelo marka la weynaado iyo sida isbeddelkaasi ula xiriiro caafimaadka iyo cimriga. Natiijooyinkayagu waxay muujinayaan in cuntada oo dib loo dhigo, gaar ahaan quraacda, ay si dhow ugu xidhan tahay caqabado caafimaad iyo halis dhimasho oo badan. Daraasaddu waxay noqon kartaa qalab lagu aqoonsado dadka waayeelka ah ee halista ugu jira xaaladaha caafimaad. Waxa kale oo ay faham badan ka siinaysaa sida caadooyinka cuntadu u saamayn karaan dadka da'yar iyo dadka da'weyn si kala duwan. Maadaama dadka adduunka oo dandadoodu sii korayso, waxaa muhiim sii noqonaya in la ogaado oo la fahmo qaababkan. Dashti ayaa ku soo gabagabeeyey, bukaanada iyo dhakhaatiirtu waxay isticmaali karaan isbeddellada caadooyinka cuntada sidii calaamad hore oo lagu baaro dhibaatooyinka caafimaadka jidheed iyo maskaxeed. Sidoo kale, dhiirigelinta dadka waayeelka ah inay yeeshaan jadwal cunto oo joogto ah waxay qayb ka noqon kartaa istaraatiijiyado ballaaran oo lagu horumarinayo caafimaad wanaagsan iyo cimri dheer. Cilmi baaristani waxaa lagu daabacay Communications Medicine.